marka koowaad waan ka taxsiinayaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba. Intii ku dhimatay Allah naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah u boogadhayo. marka labaad qofka Soomaaliga meel kasta ha ku noolaado, ama Laascaanood ha ku noolaado, ama Burco ha ku noolaado, ama Hargeysa ha ku noolaado, ama Berberi iyo Boorama ha ku noolaado, ama Muqdisho ha ku noolaado, ama Kismaayo iyo Baydhabo iyo Usamareeb iyo Beledweyne ha ku noolaado iyo Garowe. qofka Soomaaliga meel kasta oo uu joogo dhiiggiisa in si xaq darra loo daadiyaay waa khad axmar, lama aqbali karo. waa qodobka labaad, meel kastoo joogaan dadka Soomaaliyeed ee shacabka ah ayaga oon hubaysnayn oo dhagxaan wata in hub iyo rasaas lala dhaco oo la laayo wax la aqbali kara maaha. cid laga aqbali kara male. anaan laga aqbalayn, adaan laga aqbalayn, ku kalaan laga aqbalayn, mid laga yeelaya maaha. qof laga yeeli kara malaha, waana ka xunnahay. waxaa ii soo haray runtii dadka Soomaaliyeed ee areadaas degan, maamulka jooga hadda Somaliland, waxaan ugu soo jeedinayaa inay dadka la hadlaan, qori afkiisa aan lagula hadlin, laakiin loo yimaado lala hadlo si nabada waxa ay rabaan loo weydiiyo, lana dejiyo. waxaan runtii jecelahay in aan ammaano shuyuukhda iyo boqorada iyo salaadiinta ka hadlay oo aan